anna wuxuu yiri dambaa meeshii igu haysa intaan dee u tago qofkii intaasoo dhan wanaaga ii sameeyey kuma oran karo xaaskaagan maalin walba u galmooda waliba dee Soomaaliya dad joogtana shan xabba laga yaabay lagu salaamo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا دمانتي من الأقصى عالم كات كشوف تامس كسوة نقط وناكسن ما أنت أنا تيك توك كوتشرة أيام وحانر كليب ير أنا مرة لي بودكاست اللي جسوا جوي كليب كان ويل كان لجوا رئيسني أيام وحو يري جبر أنا أصحاب أهانشرني هدي مر لجور صدو إني إصاو وعدو إن وعو وحلير هذا ما شرته معناه وحريرة ووينو بالارنو أنت كدم بيا ونسيل هانكرنا ما شرته كومنتيga markaan tagay dadka qaar qofba fikrad buu leeyahay way ku kala yarad duwanayeen meel badan laakiin wiilkaas horta boqolkiiba boqol waa saxan yahay waana arrin aan aaminsanahay nin kasta waa in laga helo haddii gabadhu waxa ay ku soo wacaysaa ay tahay hawlo adduunyo tusaalahan hebel waxa lagu yiri waxaas iyo waxaas waa taqaanaa ama shayga meesha laga helo iyo wax la mid ah taas waa caadi oo bini aadamku isu soo wici karaan marmar gabadha podcastiga dabcan iyadu way wareysanaysaa dee waxay rabtaa ninkan fikirkiisa inay ogaato ayaa waxay tiri miyaysan xataa gabadhu marmarku soo wici karin si xataa ay kuugu nafisto ninkaasoo fikirka uu qabo ayaan boqolkiiba boqol aaminsanahay waxaana filayaa ragga oo dhan inay tan ka siman yihiin nin jecel gabadha uu qabo inay nin kale wacdo walaaltinimo wax la yiraahdaba arrintu ha ahaatee ma jiro raggu boqolkiiba boqol meeshan way ka dhintaan sabab badan oo waxaa jira ninku uu dareemayo waa laga yaabaa gabadhu inay tiraahdo tusaale ahaan ninkayga dee ma khiyaanayo qof wanaagsan baan ahay qof iimaan leh baan ahay waan is ilaalin laakiin dhibaatadu meesha ay ka jirtaa oo in badan aydan haddaad dumar tihiin fahmi karin waa ninkani wuxuu og yahay ninku waxa uu ka samaysan yahay raggu siday u badan yihiin waxba ma cafiyaan iyagaa laga yaabaa xataa mararka qaar adoon arrintaa uba soconba inay ku geliyaan inaad horta kow mushkilad adiga ku haysata gurigaaga nin kale inaad kala hadasho maba ahanba haddii ninkaa aad tala weydiinayso waa in aad mushkiladda u sheegto waxa uu tala kuu siiyana dhegaysato intaa wixii ka dambeeyana sheekadu inaysan sii socon oo muhiimadda aad qofka u wacday eed ugu dhiibatay mushkiladaada si bal wax uun xal ah oo kuu siiyo way dhamaatay ninka ragga ahi marka uu ogaado in xaaskiisu ay nin kala wacdo walaaltinimo iyo waxay doontaba ha ugu yeerteen maalintaasaa waxaa u dambayn doonto inuu ninkaasu gabadha aamino wuxuu isweydiin sababta ay nin kale u wacaysaa maxay tahay adigu waa laga yaabaa marka dhankaaga inaad isleedahay anigu dee qof wanaagsan baan ahay wiilkani waa wiil walaalkaya isku meel baanu ka shaqaynaa laakiin ninku waxa raggu ay ka samaysan yihiin buu yaqaanaa inay balaayo ka shaqeeyaan maahan wanaag kama shaqeeyaan raggu sideedana nin wanaagsan gabar wax danoo isu keenaysaa aysan jirin iskama wacdo tusaale ahaan haddii hadda maanta lagu qabad gabar tahay marmarka qaarna ay dhacdo inuu nin iska soo kaawaco tusaale ahaan waad wada shaqaysaan ama waad istaqaanaan ma kula tahay ninkaasu inuu gabar kastoo telefoonkiisa ku jirta uu waco maya ma waco adiga sababta kuu soo wacaa maxay tahay jacaylka goonida ee uu kuu hayo ama xusuusta uu ku soo xusuusta maxaa keena macalaab adiga kaa luntay baa agtiisa taal muxuu kugu soo xusuustaa marar badan marka waxaan idhaahdaa haddii gabar la guursado bannaanka ka mar markii hore waad istaqaaneen asxaab baad ahaydeen waad iswici jirteen laakiin marka la guursado bannaanka ka mar intaa wixii ka dambeeya waxaa laga yaabaa inaad sabab ugu noqoto reerkaasu inuu dumo qisaan idinka sheekaynaya nin aaminaad ma lahan sababta aan arrintan u keenayana wax kale maahan waxaa dhacda marar badan in aaminaadda xaddhaafka ah lagaaga faa'iidaysto waxaan u maleynayaa 2 sano ka hor inay ahayd hadda waqtigan wiil baa maalin wuxuu isoo weydiiyey talo waliba muddo i raadinayay fariimo kala duwan buu ii soo diray walaalow inaan kula hadlaan rabaa ugu dambayn aniga isagu waa ishelnay
markuu qisada iiga warramay maalintaa laga soo bilaabay ilaa hadda waqtigan aan joogo qisadaasoo qalbigayga kama fuqdo macnaha argagaxa ay leedahay darteed baynan qalbigayga marna uga fuqin wiilkan wuxuu yiri nin waxaan isku dayaa inaanan magaalada sheegin waxaana isku dayaa in aanan wax inaba lagu garan karo aanan tilmaamin wiilkan qof ay qaraabo yihiin nin ay qaraabo yihiin waalid ahaan dadka kuwa iigu dhow ah aabihii ma aha ayaa wuxuu yiri kaalmeeyay anoo yar buu baadiye iga soo waday magaaladuu i keenay gurigiisa qayb ka mid ah ayaan degay waxbarashuu i geeyey gelin baan wax soo bartaa gelinka dambena isagaan la shaqeeyaa wuxuu yiri maalin maalmaha ka mid ah ayaan gabadha uu qabo faraka ciyaarnay faraka ciyaarkii iyo kaftankii waxaa ka dhalatay in ay meel fog la gaarto inay arrimihii sariirta sameeyaan inay xaajo gutaan maalin walba wuxuu yiri arrintii markay nala fogaatay bay ila kharaaraatay guriga waa yimaadaa anna dhan baan habeenkii ka jiifaa isna xaaskiisuu la jiifaa maanta dhanna anaa la joogay markuu iskuulka ka soo baxo intaanan shaqada aadin wuxuu yiri meesha ugu horreyseen sii maraba waa iyada murugada marka uu dareemayay waxay ahayd wuxuu yiri haddaan damco gurigii inaan ka tago iyadii baan ii ogolayn inaan ka tago anna wuxuu yiri dambaa meeshii igu haysa iyadiina intaan dee u tago qofkii intaasoo dhan wanaaga ii sameeyey kuma oran karo xaaskaagan maalin walba u galmoodaa weliba dee Soomaaliya dad joogtana 5 xabaa laga yaabaa in lagugu salaamo uma malaynaya dee inuu sii noolaan doono haddii arrintaasu dhacdo uu dee isaga ula tago arrintu meelahaasoo kale waa meel kharaar qurbaha waa laga yaabaa dee ninkuna waxba kugu samayn laakiin Soomaaliya dad joogto way dhici kartaa inuu ku dilo wuxuu yiri marka arrintii si aan yeelan garan kari lahayn ciriiri badan baan dareemayaa culays badan baan dareemayaa salaadii ima dhadhamayso ma tukan karayo gurigii haddaan damco inaan ka tago kama tegi karo waayo dambaa meeshan igu haysa waxbarashadii inaan dhamaysto waa rabaa iyadii markaan iraahdo naga daa waxana iyadii baanba iska kari laahay subxaanallahi alcadiim macnaa wiilka waxaan u maleynayaa marar fara badan baanu wada hadalnay meeshan marka ujeedadan u socdaa waxay tahay gabar kastoo la qabayo haddii ninkaagu uu ku yiraahdo rag kale ha la hadlin fadlan la dareen xor baanahay ciddaan doonaan la hadli karaa maxaa ku jaban aniga kaalay waxaad imoodinaa jirkii ka ganacsado waxyaabahaasoo dhan ninka uma dhadhamayaan umana muuqdaan mana fahmayo wuxuu og yahay ninku waxa ay raggu ka samaysan yihiin raggu waxba kama dayriyaan kuwan ilmihii yaryarka ahaa ay ka baxsan yihiin oo qaarkood xoolihii ka fakan la yihiin ma kula tahay inuu uga leexanayo mid iimaan leh ma ogiye gabadha tan waa la qabaa darteed dabcan maya haddaad u hadal jilciso u dabdabciso u la kaftanto rag waxaa jira ayba ugu baxdaba dumarka la qabo nin marka ha sugin inuu ninkaagu kalsooni qabo oo uu kugu aamino haddii tusaale ahaan ninkaagu uu maqan yahay walaalkiina uu yimaado naftaada ixsaan u samee waxaad tiradaa walaalow marka uu soo noqdo anaa ku soo wici doono u sheegi doono ama isaa ku soo wacay ama anaa ku soo wacay soo noqo ku dheh laakiin isagoo guriga fadhiya inuu ninkaagu ku yimaado absolutely maya waxyaabaha shakiga keena waxaa ka mid ah dadku markay wax iska qarqariyaan tusaale ahaan gabar baa tahay waa lagu qabaa qof aadan filaynin baa iska soo kaawacay ilaa dad badan oo taqaani baa jira dad badan oo kaaba warqabin inaad guursatay baa jira markay ku soo wacaan ninkaagu markuu yimaado waad u sheegi kartaa wax dhibaato ku jaban ma jirto laakiin markaad qariso hadhow ay dhici karto inuu telefoonkaaga ku arko hadduu kaa shakiyo waa kaa saxan yahay waan hubaa meelaha dadku badi meelahan oo kale marka la joogo waxay yiraahdaan kalsoonida qaali ah kalsoonida wax ka qaalisan ma jirto qofka in la aamino waxay kaga fiican tahay ma jirto laakiin mid baan rabaa inaan idin sheego sideedaba yaa la khiyaanaa qof wax aaminay
haddaadan ba waxba aaminin wax kastoo dhacmeed khiyaano ugu yeeri kartaa dabcan maya marka reerku uu dhisan yahay haddaad nin tahay ka fogow markaad guri timaado adoo filaya inuu ina adeerkaa joogo adoo filaya inuu walaalkaa joogo hase yeeshee aad aragtay inaysan joogin iska noqo waxaad tiraahdaa hadhow baan soo laabanaya mar haddaad ogaato ninkii guriga lahaa inuusan joogin maalin baa hadda kahor waxaan xusuustaa laba nin baa suuqa iskaga hor timid markaasaa mid baa wuxuu yidhi waniyahow hiblaayiyi carruurta waan arkaa laakiin adiga lagumaba arko ninkii feer buu ku bilaabay waa la kala qabtay war maxaa dhacay war maxaad ninka ku feeraysaa wuxuu yidhi xageebo xaaskayga iyo carruurteeda ku arko anigiigu arki waaye anigu magaalada iyo suuqa iyo meelahan baan joogaa goobaha shaqooyinkan joogaa dhulkaasaan maraa isagu dhulka ma maree carruurteeda waxaan ku ogahay gurigayga inay joogaan iyo xaaskaygu iyo ma gurigu ii daba maraa ninku marka ninka raggaahi meel fog buu ka fakaraa waxna ka fiiriyaa haddii nin gabar la qabo uu wacayo la sheekaysanayo hase yeeshee wax labadood tusaale ahaan way dhici kartaa marmar inaad labada qofba saaxiib la tahay ninkana saaxiib baad la tahay gabadhana saaxiib baad la tahay sida guud ahaaneedna hadduu isagu ku soo wac mararka qaar iyadana waad la hadashaa taa hadduu ninku og yahay wax dhibaataa ma lahan waayo ninkii baaba kaa warqababa isagaad wacaysaa war hebelow ii warseetan fiicanta waxaa laga yaabaa inay ku tiraahdo war waxbaan rabay inaan ku weydiiye hebelow sidaa iyo sidaa oo telefoonka iyada u dhiiba taas waa caadi dad isdhex galay oo isyaqaanaad tihiin laakiin adigu nin ahaantaada waa inaad bannaanka ka joogto ka fogaato mar haddii gabadha tan la qabo waxaa kuu soo hartay arrintan la yidhaahdo inay gabadha kugu nafisto weliba gabadha podcastgu ay tilmaantay gabar la qabaa cidda keliya mudan in ay ku nafistaa waa ninkeeda hadday meel kale ku nafisto weydo hooyadeed baa joogta aabbaheed baa jooga walaalkeed baa jooga kuwaasay ku nafisi kartaa haddii intaasuba aysan joogin rabbiga abuurtay ha ku nafisto ilaahay ha caabudo salaad ha tukato wastaciinuu bisabri wasalaa laakiin inay ciriirkay dareemayso iyo ninkeeda mushkiladda iyo iyada dhex taalla iyo inay nin kale intay wacdo ay tirado waa ku nafisaya iskala sheekaysato taasu mid meesha ku jirta maahan weliba gabadhaasu inay gabar wanaagsan tahay ma tusayso akhlaaq wanaagsanna inay leedahay ninkeedana way khiyaanaysaa marba haddii ninka fariin ay dhici karto hadduu ninku arko inuu ka xanaaqo ama fariini markay u soo dhacdo telefoonkeeda ku jirto si ninkeedu uusan u arkin hadday masaxayso gabadhaasu ninkeeda daacadu maahan sidaa doontidba waa wanaagsanahay u dheh dee qof walbaaba wanaagga afka waa ka sheegan karaa waxaa kaloo jirta oo laga yaabaa meesha tan inaad igu qabsataan oo tirahdaan ninka raggaana bal ka warran marar badan baad adigu ragga unbaad u hiilisaa laakiin ninka ragga ahi anshax iyo sharaf uma ahan in uu gabar la qabo iyo midaan la qabinba isagoo reer leh oo xaas leh intuu waco inuu sheeko intuu u galo sheekadaas weliba aan ka hadlayaa waa markay shukaansi iyo damac tahay rag badanoo waxaa jira xaasaskooda waa u hadal kharaari yihiin gabdhaha weli aysan qabine xaaraanta ka ahee bannaanka joogana waa u hadal macaan yihiin waxaa laga yaabaa gabar hadduu arko inuu ammaano quruxley baa tahay adiga ninkii ku helaa waa nasiib badan yahay laakiin iyada 3 jibaar mid ka qurux badan baa guriga u joogtaa dhici karta taas uma muuqato waayo shaytaanku wax kastoo fool xunba waa kuu qurxiya shaygan xaaraanta ka ah buu u qurxinaya gabadhan qurux baa loo saarayaa aysan balahayn waxaa laga yaabaa xaaskiisu inay 100% ka qurux badan tahay ka nadaafad badan tahay si walba dhanka hadalka ay kaga wanaagsan tahay laakiin tan ayaa u muuqata sheekadan tirada badan iyo kaftankan iyo cunto u keen iyo coffee u soo qabo iyo waxay keentaa marka dambe in la isku fogaado haddaba dhammaantiin intaynu muuqaal kale dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh